dhacdo cajiib ah ayaa maanta ka dhacday dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London goob ay ka dhacaysay xafladii 18 May oo ay ku dabaaldegayeen qurba joogta Somaliland ayaa wiil ka soo jeeda magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxa uu la soo dhex istaagay calanka Soomaaliya ee buluuga ah haddaba maxaa ku dhacay wiilkan warbixintan ayaan kugu la wadaagi doonaa balse inta aanan bilaabin ku soo biir kumanaanka kun ee qof ee sida joogtada u helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo galino adigoo page-kayga like saar iyo follow-na dhahanaya sidoo kale muuqaalkan like saar like-tu waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin iyo inuu muuqaalkani meel fog gaaro adigana wax dhiba kuguma hayso haddaba adoo raaliya fadlan muuqaalka like noo saar siina share garo asxaabtaada la wadaag mahadsanida saad wada ogtihiinba maanta waxay ku beegantahay 18 May waana 30 sano ka hor maalintii magaalada Burco lagaga dhawaaqay war weyn goboladii waqooyi oo hadda la baxay Somaliland ayaa ku dhawaaqay inay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale meelo badan oo kamid ah Somaliland iyo dalka dibadiisa ayaana looga dabaaldegay 30 sano guuradii ka soo wareegtay maalintaasi haddaba magaalada London ee cariga Ingiriiska ayaa maanta goob ay isugu yimaadeen qurba joogta Somaliland isla markaana isaga baashaalayeen oo ay ku xusaayeen maalintaas ayaa wiil ka soo jeeda magaalada Buuhoodle oo kamid ah farisiimihii Sayid Maxamed Cabdillah Xasan iyo halgankii daraawiishta wiilkaas oo lagu magacaabo Maxamed Cali Soofe ayaa hal mar meeshii wax uu la soo dhex istaagay isagoo lulaya calanka buluuga ah ee shanta gees leh ee Soomaaliya balse reer Somaliland meeshii joogtay ay arintaas la noqotay la yaab sidoo jeedaanba way isku soo xoomiyeen iyagoo la diriraya balse uu isaguna ku adkeysanayo inuu calanka Soomaaliya kor u qaado uu dambeyntiina meeshii waa lagu kala tagay maadaama uu wiilkaasi buuq ku furay haddaba dhacdadan ay aad u hadalhayaan Soomaalida London iyo baraha bulshada oo ay dadku ku hadalhayaan haddaba fikir noocee ah ayaad ka qabtaa Somaliland ma ku raacsantahay inay ka go'aan Soomaaliya wiilka talaabada uu qaadana see u aragtaa fadlan fikradaada qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalkana like saar siina share garo asxaabtaada la wadaag mahadsanida